kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii geeska Afrika. aan ku bilownay hay'adaha amniga ee Itoobiya iyo booliska caasimadda Addis Ababa ayaa si maalinlaha u soo bandhiga hub lagu sheego inuu si sharci darro ah ku soo galay dalka oo la qabtay. maanta waxaa la qabtay 9,000 oo rasaas ah, kuwaas oo ah rasaasta baskooladaha iyo dadkii waday. labadii cisho ee u dambeysayna waxaa la qabtay hub aad u tiro badan kaasi oo ahaa sharci darro. dhanka kalena Itoobiya waxay daahfuri doontaa qorshe sahli doona in bisha soo socota la bilaabo adeega gaadiidka dadweynaha oo korontada ku shaqeeya. lacagta shidaalka kaga baxda Itoobiya oo gaadhaysa 4 bilyan oo dollar ayaa la doonayaa in la yareeyo, waxaana qorshaysan in 10 sano ee soo socota la soo geliyo 4,800 oo basaska waaweyn iyo 148,000 oo hatagaasi. bisha soo socotana waxaa si tijaabaha u howlgeli doona 60 ka mid ah gaadiidkan korontada ku shaqaynaya. waxaa kale oo la diyaariyey 40 goobood oo ku yaala caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa dhexdeeda, kuwaas oo lagu sameeyey goobihii laga jaarjay garayn lahaa gaadiidkan. waxaana la filayaa kadib marka la howlgeliyo in ay wax weyn ka tari doonto gaadiid la'aanta guud ahaan Itoobiya ka jirta. weli waxaan ku guda jiraa wararka geeska Afrika. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta booqasho rasmi ah uga bilaabatay dalka Kenya, halkaas oo kula yeelan doono dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta. xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxaa sanadihii la soo dhaafay hadheeyay khilaaf aad u xoogan oo ka dhashay arrimo kala duwan, iyadoo hadda isha si gaar ah loogu hayo in labada dhinac ay heshiis ka gaadhaan arrimaha uu ku jira ganacsiga qaadka. dowladdii hore ee Soomaaliya uu hogaaminayay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo dowladda Uhuru Kenyatta waxaa dhex taallay xurguf diblomaasiyadeed oo horseeday in labada dal ay u yeedhaan safiiradii u kala fadhiyey Muqdisho iyo Nairobi. dowladda haatan ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa inay wax badan ka beddesho xiriirka labada dal. markii la doortay Xasan Sheekh ayaa waxaa durbadiba soo baxday in Kenya u ogolaado in duulimaadyadii qaadka ee Soomaaliya ee la joojiyey dib loogu furi doono, inkastoo Soomaaliya iyana ay shuruudo ku xidhay in ay taasi dhacdo. haddaba waxaa la filayaa Xasan Sheekh iyo Uhuru Kenyatta inay ka wada hadlaan arrimaha diblomaasiyadda, qaadka iyo sidoo kale xiriirka labada dhinac. intaanaan ka bixin wararka caawa ee geeska Afrika, madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqa ee Itoobiya Aadan Faarax ayaa la kulmay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika Marwo Hana Tete. mudane Aadan Faarax iyo Marwo Hana ayaa ka wada hadlay arrimaha gobolka iyo dalka. intuu socday kulanka, Itoobiya waxay sheegtay in ay kala shaqayn doonto dalalka dariska ah sidii loo dejin lahaa qorshe lagu ballaadhinayo barnaamijka horumarinta cagaaran ee dalka si loola tacaalo abaaraha ka jira geeska Afrika. waxaa kaloo ka codsatay qaramada midoobay in ay taageerto qorshaha Itoobiya. madaxweyne ku-xigeenka ayaa dhankiisa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in ay si nabad ah loola tacaalo colaadda ka taagan gobolka Tigray. dowladdu waxay sii daysay maxaabiistii lagu xidhay howlgallo la xidhiidha TPLF, waxayna bilowday xabajoojin iyo shaqo la xidhiidha mucaawino bini'aadantinimo oo aan dhammaad lahayn, ayuu yidhi mudane Aadan Faarax. madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqa ayaa sheegay in diyaargarowga wadatashiga qaran ee xukuumaddu hadda meel wanaagsan marayo. wuxuuna sidoo kale tilmaamay in dowladdu ay si buuxda u taageeri doonto geedi socodka nabadeed ee ay hormuudka ka tahay ergeyga gaarka ah iyo guddoomiyaha guddiga midowda Afrika iyo madaxweynihii hore ee Nigeria oo uu ku tilmaamay tallaabo loo qaaday dhinaca abuurista jawi ku habboon nabadda. golayaasha fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga barwaaqa ayaa si qoto dheer uga hadlay arrintan, waxayna ku tilmaameen in ay go'aansadeen in ay ka shaqeeyaan sidii loo hirgelin lahaa doorasho nabadeed oo Afrikaanku hormuud ka yihiin. dhinaca kale, ergeyga gaarka ah Marwo Hana Tete ayaa bogaadisay dadaalka Itoobiya ee ku aadan iskaashiga ay la leedahay dalalka dariska ah, waxayna xaqiijisay taageerada qaramada midoobay.
ugu dambayntiina waxa ay tidhi qaramada midoobay hawsheeda ugu weyni waa inay dhisto nabadda